Abdullahi waa mahadsan tahay runtii wadanka Syria waxa ka socda mowjado dagaal ah oo inta badan bariga dhexe inkastoo bariga dhexe iska wada holcay laakiin mowjado u dhaxeeya Shiicada iyo kooxaha Sunniga koox la yiraahdo Ahrar Sham oo barataar inta badan Turkiga ayaa weerar ku qaaday ciidamada Syria 4 maalin ugu dambeeyay waxay qabsadeen magaalada ugu weyn labaad ee dalka Syria ee Halab afka Carabiga lagu dhaho laakiin Aleppo loo yaqaano iyo gobolka Idlib ay la wareegeen iyo 30 deegaan marka howlgalkaas waxay ugu magacdaleen howlgalka ka hortagga gardarrada waxayna rabaan inay xukunka ka tuuraan kooxda Bashar al-Assad ama Calawiyiinta oo ku dhow 100 sano xukumayay Syria marka waa mowjado culaadeed oo bariga gobolka bariga dhexe uu wajahayo way 8 sano kadib maxaa dib u soo celiyay dagaaladani inay xooga mucaaradka mar kale isku dayaan inay Bashar al-Assad xukun ka ridaan iyadoo ognahay in laga adkaaday oo Bashar al-Assad oo Iran iyo Ruushka taageero ka helaya ay dagaalo xoog leh duqeymaha ay ku jabiyeen xooga mucaaradka runtii waxaad u qabtaa hadda inay fursad heleen maxaa yeelay fursadda dagaalka ka socda Gaza iyo Lebanon ayaad u qabtaa kooxahaas inay يعني si fiican fursad u heleen Turkiga iyo Qatar ayaa inta baran yani dhaqaalaha ku bixiya si looga saaro maxaa yeelay markaad fiirisid dadka Suuriya dadka ku nool boqolkiiba 90 waa dad muslimiin ah boqolkiiba 73 waxa way dad Sunni ah waxaana xukuuma 13% oo ah qowmiyada leeyahay Calawiyiinta marka taariikhda dib u fiirisid 1920 ay qoyska Calawiyiinta ah ayuu Faransiisku halkaas ku abuuray kadibna markii xornimada la qaatay oo Syria 1946 ayay waxay isku bedeleen xisbiga leeyahay xisbiga al-Ba'ath laga soo bilaabo ilaa hadda hogaamiyaashii dhan soo maray waxay isku dayayeen in cagta saarayaan dadka Sunniga ah oo aqlabiyada wadankaas ah Xaafid al-Asad laga soo bilaabo ilaa Bashar al-Assad dhamaantood markastoo ay kacdoon dadka sameeyaan waa laga hortagay 2016 kan xasuusanaa inay mar isku dayeen inay kacdoon Idlib ku sameeyaan waa laga takhalusay iyadoo Ruushka loo adeegsanayo marka waxaad u qabtaa mowjado cusub inuu Bashar al-Assad uu wajahayo maxaa yeelay dadka Sunnada ayaa doonaya in isbedel ku sameeyaan gobolka bariga dhexe ayagoo aqlabiyadii ah marka waa mowjado cusub way arintan Ruushka ee uga furan Ukraine iyo Iran oo la tacaalaysa qudheeda xiisadan kala leh Israa'iil oo ururka Xisbullah qudhiisa Lebanon ay ku dagaalamayaan Israa'iil ma dhihi karnaa garabkaas ay Bashar al-Assad waayay iyo culeysada halkaas kaga yimid darteed ay ku xan u soo laba kacleen runtii waa la dhihi karaa marna lama dhihi karo waxaad u qabtaa Ruushku inuu muddo dheer Syria dagaal kama dhicin 2016 wixii ka dambeeyay waxaad u qabtaa xaaladdu inay normal ahayd oo hadda dhankaas Ukraine ayuu xoog saarayay saldhigyo military ayuu ku leeyahay wadanka Syria gaar ahaan magaalada Latakia oo xeebta taala marka waxa uu arkaa inuu gobolka bariga dhexe inuu sii joogo inay muhiim u tahay danihiisa dhaqaalaha isagoo kula tartamaya Mareykanka waxaan ognahay bariga dhexe inuu ku leeyahay base ciidamada Mariniska Mareykanka ama ciidamada sida gaarka u tababaran ee Qatar fadhiyaan marka danihiisa ayuu ka ilaashanayaa wadamada bariga dhexe intii dagaaladu socdeen 2011 markii guuga Carabta u dhacana waxaad u qabtaa saaxiibka kali ah ee ku soo haray reer galbeedka markii laga soo tago oo dhanka kale ka soo jeestay waxay ahaayeen Ruushka oo markastaba hubsiinay waana sababta Bashar al-Assad looga raaylayahay waxa waaye gaashaanbuur iyo gaashaan waxa u noqday Ruushka oo awoodda labaad ah Iran oo Iran ayadu Shiicada ka taageeraysa dhanka Shiicada marka kacdoonkii iyo dagaaladii 2011 ka bilowday Syria Bashar uu ku guuleystay ugu dambeyn ilaa 2016 maxay kuwan kaga duwanaan doonaan mar kale runtii waxay kaga duwanaan doonaan baraarugo ayaa jirshay muslimiinta gaar ahaan Sunnida ah sunnadu inta badan waad ogtahay gobolka regionka waxa powerka u ah waa Iran hadda wax u qabtaa Lebanon in looga adkaaday oo Israa'iil dagaalada meel badan furimo uga marka waxay uga duwan yahay kacdoon cusub oo dadka Sunniyiinta ay doonayaan inay uga faa'iideystaan inay sunnadu maadaama 100 sano wax ka badan ee dadka Shiicadu ay xukumayeen Syria marka waxay rabaan dhiig cusub inay ku shubaan inuu sunnada qabsadaan marka dardargelinta ay ku socotaan laga dareemi karaa wax 4 maalin ka yar inay 30 deegaan ku qabsadaan wax sahlan ma wax u baahan yaa gadaal ka taagan oo Sunniyiintu isku haleynayaan Sunniyiinta waxa gadaal ka taagan ilaa hadda la sheegayo dawladda Qatar oo iidan maalgelida Turkiga ayaa isagana garab ka taagan dhanka kalena waxa garab ka taagan waa Iran iyo wadamada Shiiciga inta badan reer galbeedku intii jiraan sida Mareykanka iyo reer galbeedku waxaad u qabtaa inay Bashar laga tuuro xukunka rabaan way rabaan waxaad u qabtaa dhanka sunnada inay taageersan yihiin waxa yeelay Bashar al-Assad waxay ku eedeeyeen inuu galay yani dambiye ka dhana xuquuqda insaanka hub sharci darro ah inuu ku adeegsaday
wayna ninka kaliya ay guga carabta ka soo haray intii kale waa laga tuuray wuxuuna intaas ku adeegsanayay waxa waaye shiicada gobolka bariga dhexe oo Iran Tehran iyo Moscow oo garab iyo gaashaan markastaba u ahayd in awoodiisa aan laga tuurin kooxdan hadda mucaaradka waxa leeyahay waa jihaadiyiin marka dhinac laga eego oo waliba waxa wax alqaacida mar garab la lahaayeen sidoo kale hogaamiyihii ISA hatta wax ka dhisay marka ma laga yaabaa inay isku rogaan dhinaca kale koox dagaalyahana oo nidaam ka duwan midka caadiga loo yahay wadamada ka hirgeliya runtii waa macquul markastaba wax u qabtaa dagaalada bariga dhexe ka dhaca danaha Mareykanka inta badan lagu ilaaliya waxaan soo wada qaadan karnaa Afghanistan 80-yadii markuu jihadka Afghanistan socday Mareykanka baritaaray 10 sano ka bacdi Mareykanka dhinaci kale wuxuu u aqoonsaday alqaacida inay tahay argagixiso marka waxa macquul Mareykanka iyo wadamada baritaaraya inay danahooda ku fushanayaan maalintii danahooda ku fushanay inay dhahaan ururkan waa argagixiso laakiin dadkaasi waa dad sunni ah oo ka soo horjeeda shiicada aqlabiyada leh shiicada aan aqlabiyada ku lahayn Syria oo muddo dheer runtii dadkaan u diiday inay xukunkooda iyo dadkooda iyo diintooda ilaashadaan oo xataa dadka sunniga laga mamnuucay inay masaajida ka sameystaan Syria waxayna rabaan qoladan shiicadu inay sida wadanka Iran camal ay ka dhigaan oo xukun dictator oo adag inay Syria ka sameystaan haddii shiicadii Lebanon oo Hezbollah ay xoog ku leedahay Iran ay joogaan Syria ay labada dhinac u dhaxayso way adag tahay sunniyiintu ma dhihi karnaa inay guul la taaban kara gaaraan mar haddii labadii dhinac ay shiicadu ka taagan yihiin oo culays ku noqon karaan dhinacna ruushka ay taageerayaan Bashar runtii waa culays waa dhankaas waa ku noqon kartaa maxaa yeelay markasta wax isdiidaya danaha oo gobolka bariga dhexe ka jira ayaa markastaba muhiimadda iyo sida ay kala muhiimsan yihiin loo kala qaada sunnadu waxa way dad kala go'doonsan baad u qabtaa maxaa yeelay Ciraaq marka fiirisid aqlabiyadu waa sunni laakiin shiica haysta Lubnaan waa sidoo kale meel walba waxaad u qabtaa sida kurdiyiinta loo sameeyay in loo kala jarjaray laakiin hadda waxaad u qabtaa dabeel siyaasadeed oo Syria ka imaanaysa inay meelo muujado badan ay qaadi doonto marka muhiim ay tahay in waxaan yihiin wixii sanadihii hore ka duwanaa leeg tahay hadaad boqolley ku cabirto inay guuleysan karaan oo Bashar la tuuri karo runtii muujadaas ka dhacay wadamadii adogtay Tunisia Masar runtii waxaan isleeyahay 90% rajadu way dhowdahay maxaa yeelay inay sunniyiintu xilka qabsanayaan maxaa yeelay dictator Bashar al-Assad 13 sano Ruushka un baa taageeraya mahane aqlabiyada caalamkina waa lumiyay dalkiisina qaxootiyo ka dhigay marka inay ka tuuri doonaan oo sunniyiintu ayaa wararka qaarkood ay qoranayaan hadda dagaalkan ka soo cusboonaaday Syria saameyn ka ayuu ku yeelanayaa dagaalkii guud ka socday bariga dhexe ee Israa'iil iyo Hezbollah u dhaxeeyay iyo dhibaatada Israa'iil ay ka wada qudheeda Gaza runtii fursad ay u tahay Israa'iil cadawgaaga cadawgiisa waa saaxiibka in Israa'iil maanta gobolka bariga dhexe dagaal ka dhaco fursad ay u tahay maxaa yeelay waxa ka dabcaya nabar weyn oo ka taagnaa gobolka bariga dhexe waxaana fududaanaya in Israa'iil isku ballaariso Gaza iyo dhulkaas hadda waxaan ognahay in Israa'iil iyo Hezbollah heshiis ku meel gaar ah la gaartay laakiin waxaad u qabtaa hadda isbedelka gobolka bariga dhexe in ay Israa'iil ka faa'iideyso aad ayuu mahadsanyahay Mustafa Farsame ayuu ahaa oo falanqeeya arrimaha bariga dhexe oo barnaamijka dabagalka ila qayb galay Mustafa mahadsantahay shukran mahadsantahay